kacbadu waa qiblada muslimiinta u jeestaan marka ay dukanayaan kuna dawaafaan xilliga xajka waan dhismihii ugu horreeyay in lagu cibaadaysto loo dhiso sida diinta islaamku qabto. marka laga hadlayo kacbada waxaa qasaba in laga hadlo masjidul xaraam waayo kacbadu waxay ku taalaa masjidul xaraam dhexdiisa ayadoo taariikhda masjidka ka bilaabanayso taariikhda kacbada sharfoon. culimada islaamku waxay isku khilaafeen ciddii ugu horreysay ee dhistay kacbada. qaarkood waxay qabaan inay dhistay malaa'igta, qaarna waxay yidhaahdeen waxaa dhisay nebiyullaahi aadam calayhi salaam, qaarna waxay qabaan shiid ibnu aadam inuu dhisay. kuwo kalena waxay rumaysan yihiin nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam inuu dhisay. waana sida xooga badan yacni ugu saxan ee daliilka qur-aanka lagu xujaysan karo waxaana doortay imaam ibnu kathiir. kacbadu waxay leedahay magacyo dhowr ah ee loo yaqaana waxaana magacyada lagu xusay qur-aanka kariimka, qaarna waxa ay kala yihiin magacyadaasi ka mid ah kacba, beyt, beytul catiiq, beytul muxaram, awaalu beyt. magacyada kacbada waxaa ka mid ah beytul xaraam waayo allah subxaanahu watacaala ayaa ka xarimay in dhiig lagu daasho dhexdeeda, waxayna ka dhigan tahay meesha dhulka dushiisa ugu sharafta badan sida qur-aanka kariimka ku cad. sidoo kale alla weyne subxaanahu watacaala suuratu ali cimraan aayadda 96 wuxuu ku yidhi إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. gurigii ugu horreeyay ee loo soo dejiyay dadka waa kan maka yacni kacbada, waana barakaysan yahay waana hanuunka caalamka. sidoo kale alla weyne subxaanahu watacaala suuratul baqara aayadda 127 wuxuu ku yidhi وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. xus markuu kor yeelay nebiyullaahi ibraahim tiirarka kacbada iyo nebiyullaahi ismaaciil iyagoo leh eebbow naga aqbal adaa waxna og waxna maqle. sidoo kale alla weyne subxaanahu watacaala suuratul xaj aayadda 27 wuxuu ku yidhi ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. marka ha dhammeeyeen basaastooda hana oofiyeen nadarkooda hana dawaafaan beydka horreeyay yacni kacbada. kacbadu waxay ku taalaa bartamaha masjidul xaraam waan dhismo joogiisu dhan yahay 15 mitir, ballaca dhankeeda iridna ahna 12 mitir, halka ballaca gadaal ee dhanka masharaaftan ay tahay 10 mitir. qaabkeeduna wuxuu u egyahay dhagax weyn oo 4 gees leh oo sare u qaadan. waagii nebiyullaahi ciise calayhi salaam wuxuu dhammaa dherarkeeda 9 dhudhun oo sanqaaf la'aan ah iyo irid la'aan ah ilaa uu yimid tubac oo saaray sanqaaf, kadibna cabdimudalib oo uu saaray ilbaab bir ah oo leh gaanjo dahab ah, wuxuuna ahaa qofkii ugu horreeyay ee kacbada dahab ku xardha. haddaba kacbada sidaas u sharaf badan waxaa jirta waqti la dumin doono, weliba rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay ninka dumin doona magaciisa iyo dowladda uu ka imaan doono sida axaadiista ku cad. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi kacbada waxaa qaribi doona yacni dumin doona 5 shay yar nin la yidhaahdo yacni luga yaryare, wuxuuna ka imid yahay ama ka imaan doonaa xabashida. ninka inkaarta ku dhacday oo kacbada intaanuusan lagu xajinayo dumin doono axdigiisu ma dhawo, yacni wuxuu imaan doonaa xilli nebiyullaahi ciise calayhi salaam weliba marka uu geeriyooda kabacdi. xaafid ibnu kathiir kitaabkiisa albidaaya wanihaaya wuxuu ku yidhi kacbadu cumrigeedu wuu dheeraan doonaa insha allahu tacaala xitaa marka ay soo baxaan qoomka yaajuuj wamaajuuj, waa xilli aad u fog dabcan. marka ay baaba'aan yaajuuj wamaajuuj uu nebiyullaahi ciise calayhi salaam soo dego kacbadu waa lasii xajin doonaa insha allahu tacaala. kadib ayuu allah subxaanahu watacaala soo diri doonaa dabayl, waxay nafta ka qaadi doontaa qof kasta oo mu'min ah ee xilligaas nool. dadka meeshaasi ku dhiman doona waxaa ka mid ah nebiyullaahi ciise calayhi salaam, waxaana jinaasihiisa ku dugan doona muslimiinta xilligan nool, waxaana lagu aasi doonaa meesha uu nebiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam ku aansan yahay. marka wixii ka dambeeya ninka inkaarta ku dhacday ayaa ka imaan doona xabashida, wuxuuna qaribi doonaa kacbada sharfoon. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.